نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم. نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم. العلم مدينة إلهام لا يدخلها إلا ملهم. ودليل العالم أستاذ كم ربى أجيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة بدا صاحب يال مقعيق وعمر محمد علي كنا سورة بدا كلمية برايفت سكول إيوه 10 عصب 10 كيناني مانتا عاد أيو أوحي سبذين يهي هدي أد نقو عصب تاي فضلا سبسكرايب أيان كعصانينا هدي أتورينا لجوك دينا فضلا كان أما موقال كان لايك غري سيكو سو غيران موقالو وليبان مركا سوق لينو كان لكا كلمية برايفت سكول مركا 10 إنجليش كا kuna soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaanu markaa ka hadlaynaa mowduucayna maanta wuxuu ku saabsan yahay marriage ayaynu ka hadlaynaa oo ah guurka ayaynu wax ka tilmaamaynaa hadduu alla idmo insha Allah waxaan filayaa inaad casharadeenna la socoto fadlan haddii hore aad nala joogtayna like garay muuqaalkan waad ku mahadsan tahay kuna soo dhawaada casharka inta ka sii faahfaahsan. Marriage guurku is an important way waa hab aad u muhiimsan in which human being kaas oo bani aadamka multiplies ku tarmo and increase una ku kordho weeyaan. guurka lagu sheegayo waa mid uu aadanuhu ku tarmo ona ku kordho. Marriage guurku is not a new way hab cusub ma ahan invented oo la alifay recently dhawaanahan waqtiyadan dhow wax la alifay ma ahan guurku. It is a chain waa silsilad which we inherited taas oo aan ka dhaxalnay from our grandfather abooweena aan ka dhaxalnay oo ah prophet Adam and our nabi Adam prophet Adam aan ka dhaxalnay oo ah nabi Adam and our grandmother iyo aan ka dhaxalnay ayadeena Eve oo ah oo loola jeedo Hawa. When the two couples mar alaala markii labada lamaane man and woman ninka iyo naagta understand ay isku fahmaan. marka understand waa maxay waa fahan each other midba midka kale uu kula fahmo and agree oo ayna isku raacaan to share inay wadaagaan this world life nolosha dunidan together si wada jir ah oo markaasi ay isku wadaagaan ay isku fahmaan. They make waxayna sameeyaan a marriage guur ay sameeyaan which leads them kaas oo ku hagayo oo ku hogaaminayo to every beautiful and happy life and every beautiful wax walbo qurux badan and happy life iyo nolol farxad leh uu ku hogaaminayo. The marriage guurku is important waa muhiim and helpful aad ayuuna u caawin badan yahay oo uu caawin badan yahay to the existence jiritaanka of human ee aadanaha. And it is obvious waana wax iska cad that marriage in guurku keeps us away from naga ilaaliyo oona naga fogeeyo committing inaan ku kacno many bad wax fara badan oo xun and harmful actions iyo falal xun which can bring kaas oo keeni kara haddii aan ku dhacno a disaster musiibo to our dear life nolosheena qaaliga uu ku keeni karo. Marriage guurkuna keeps us wuxuu naga ilaaliyaa away from oo naga markaasi dheereeyaa oo naga fogeeyaa committing inaan ku dhacno adultery gogol dhaafka fornication zinada and some other actions iyo qaar ficilo ah which are similar kuwaas oo la mid ah to these ones kuwaanan hadda soo sheegnay. hadaba mowduucana maanta ayaa halkaas ku soo afmeeraya saaxiibayaal. haddii wax unaad ka faa'iiday waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto si aan u ogaano inaad markaa aad wax ka faa'iiday saan u soo badiyo casharka. waadna ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada kulmiye private school. haddii aadan weli subscribe dhihin fadlan subscribe dheh.
نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم. نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم. العلم مدينة إلهام لا يدخلها إلا ملهم. ودليل العالم أستاذ كم ربى أجيال.